السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قالقة سيتين إي ورا محل دينا جويين كورا مسود وهذا أصحابتي إذا شرفت لك عم فرق مسود وهذا channel كين أحمد official سود وهذا إذا ليلا أصحابتي قيمة يقدرين تيقايا إيجا مضن هل سود وهذا ما شاء الله تبارك الله قعم فرق سود وهذا أصحابتي إذا شرفت لك أن شعل هاي مرولبة وعاتين قربهيجا وعاتين فيميلكيجا وحاتين ددكيجا maanta wax walba waxa ay tihiin waa idinka ma sha Allah tabaaraka Allah soo dhawaada idin leeyahay asxaabteyda qiimaha iyo qadarinta iga mudan maanta maxaa isoo toosiyay ama isoo kiciyay wallahi aad iyo aad asxaabteyda sharafta leh ma dhawo waayo waxaan arkay maamo miskiin ah oo naag afrikaan ah si xun u gashay oo dishay wajigeeda Allah gubay wax fiican ma aha waa naag gaala ah wax dilay oo afrikaan ah micnaha Soomaalideena ma aha marka gurigeeda ugu soo gashay asay dishay si xun baa loo dilay wajiga laga garaacay korka laga dilay mid bay ku dhufatay sidee sheegtay ma sha Allah waan la socodontiin waan idin tusi doonaa in badan laakiin maadada aan la yaabana waxay tahay Soomaalideena inta badan waxa waaye waxay qofkii oo dhib gaarbay hadana ceeb u soo yeeyeen ceeb iyo fadeexo waa maamo weyn ee waxay ku dhahay nin bay wax ka cuntay nin bay wax ka qaadatay waa sakaraad nafta ka bixi rabto xasbunallahu wa ni'mal wakiil war anaga maxaa naga qaldan horta waxaan fahmi la'ahay waxa naga qaldan maxay tahay bas maxaa naga qaldan war saak marka soo kacaan arkay qeer Allah siiye marka ma naqaano Soomaalideena waxa waalay waan fahmi la'ahay waxay tahay qofkii oo dhib gaaray warkina aynan ogeyn bay waxay dhahayaan maxay ahayd nin bay wax ka qaadatay saas bay yeeshay wax baa galay dad baa hadlay dad baa hadal gudbi war maxaa qaldan ilaahay ka cabsada miskiinta iyadoo dhib gaara maanta ee xaaladeeda ay xaalad xun ay ku jirto bal hadda wallahi jiif ka kacay wax yar ka hor marka arkay baa danta igu kaliftay in aan la wadaago dhibka haysto iyo dadka sidii u galeen war ilaahay ka cabsada waxa aad ku hadlaysiin joojiya qaladaadka aad sameynaysiin joojiya waa hooyo Soomaaliyeed waa hooyo dhib gaaray bal iyadoo dhib gaaray oo dhibaataysan maanta gurigeeda loogu yimid oo lagu dilay inta aad dhig lahaydeen qalad baa laga gala maamadaas xaalad xun bay ku sigantaa ha loo miciino ilaahay caafimaad ha siiyo aad u ducey lahaydeen haddaad dhahdeen ka waran waxay nin bay wax ka qaadatay wax hebel bay samaysay saan bay kale horta Soomaalideena waxaan kala yaabaa malada shayga malada la dhahay loo cadaaba Soomaali cadaabtay u galayaan xaqiiqatan way malada waa xaraan waxaadan hubin ha ku hadlin waxaad hubta inaad ku hadashaa ka qeyr badan oo adiga aad biri dambi una ka soo gaareen waa waxaadan hubin maanta dad ku hadasho dhibaato weyn la kulmaysaa waxaadan hubin ha ku hadlin wixii aad hubto ilaahay uu kugu ogyahay ku hadal laakiin waxaadan hubin maanta dad dhahdo ka waran saan bay samaysay nin bay wax ka qaadatay wax bay ka dhacday xasbunallahu wa ni'mal wakiil waa maama dhiban waa maana dhibaato soo gaartay wixii loo dilay inay ogeyn bal ka waran maama wixii loo dilay aanan ogeyn hadii mala awaal la bilaabo ka war oo la dhaho saana yeeshay saana ka dhacday waxaana loo dilay waxaana loo qofkii oo dhib gaar hadana been laga sii sheego maxay dareemi kartaa ii sheeg wax badan ay dareemi kartaa maanta aan la soo marka qofkii oo dhiban oo xanuun haay oo isbitaal jiifta oo xaaladeed ilaahay og yahay hadii aad been ka sheegtaan oo dhahdaan wax bay qayaantay wax bay samaysay wax bay ka dhacday maxay dareemi kartaa xanuun ay dareemi kartaa wax beenta ka sheegayna waa walaalkaagii Soomaaliyeed oo dhahayo maxay ahayd nin bay wax ka qaadatay waa maamo weyn hadaan fiiriyo ma sha Allah waxaan dhiilaa hooyo ilaahay caafimaad taama ha ku siiyo ilaahay xanuunka ku gaaray ilaahay ka bogsiyo walaa markii aan arkay حنون زائدة دريمي إلى قير السيو وحاسود بطولة شيء لك حاجة وعيس قير الله سي ما شاء الله دتك رنت تصول آدي آدم وجعلها ولا شيء لك كر الله كاري ما شاء الله تبارك الله ويو رنت يسو صارتي بين معها معناه قف بين آدم إيه أو ما أنتي إن runta soo saartay iyadoo aragtay in been laga sheegay oo la dhahay nin bay wax ka qaadatay ninkii dilay ninkii saan yeelay iyadana naag islaameed gurigeeda intay ugu soo gashay ee korkeedii dhan hadaad aragtay fiiskeedii waa wada madoobaday jismigeedii dhan garaafo xoog leh baa ku dhacday xaalad xun bay ku sugantaa maamada sadada arka wallahi hadda soo kaca arkay markii miskiinta ilaahay caafimaad taam Allah siiyo waxaan dhiileen hooyadeena kala waay
walaasheen oo kale waa gabadh Soomaaliyeed laakiin qeer alaasi marka hadda la socdo waa idin tusaa video clipka ee walaasheena soo duubtay bal ila arka insha Allah xaaladda ay ku sugan tahay maamadaasiti iyo sida loo dilay oo loo jir dilay wixii lagu dilayna aynan ogeyn gurigeeda loogu imaado waa lagu dilay waxaa waay iyadoo dhib ay qabto dana maanta dad aadin ka waran wixii sameeyay waa wax xun nin bay wax ka sameysay nin bay wax ka dhacday Soomaalidina maxaa ka qaldan xasbunallahu wa ni'mal wakiil maxaa niga qaldan ilaahay ka cabsada ida uuntay ha laga cabsado cabsida alla way dhamaata ma garanayo wax qaldan ilaahay ka baqa oo qofku walaashiina dhibka gaaro u duceeyay hadaad u duceey kartiin hadaad u duceey karina ka aamuso oo isha ka daya qofkii waxayna sameeyay la dhahay ka way sameeyay wixii dareemi kartaa wax badan ay dareemi kartaa ilaahay ka baqa ilaahay ka cabsada warbeenta dhaafa qofka bini aadamka idoo dhib gaar hadana masbidashaha ugu dareemin iyo waxayna sameeyay xanuun baan dareemi lahaa aniga marka balna ila daawada fiidiyowga yar السلام عليكم waxaan joogaa isbitaalkayaan joogaa waa la joogaa maamadii sakaraad waa tirahdeen sakaraad maaha sidee wax u gaareenay ida idinkaga sheekeynayso nabigeena ku saliyo Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dadka been ha ka sheegina haddana waa tana hay maamo see wax ku gaareen magacaaga ku bilaawo anigoo shukri gabar albaabka soo garaacday gabar albaabka waa ka furay dagaal ila hor imaade waa ijiide gabar ma aqaan gabar waa ku jiiday waa ijiide jikada ay geysay mindiya raadsatay in ay cunto idisho iraalka madoweyna ahayd wax qabiilkeed ma sheegi karo anigana saana u fiicnaa iskaana lii saar wax jab ma jiro alxamdulillah cunugan waa kana gaariyooda madaxa ma ku daqartay wax yar mindi ay gaarsiis wax yar waa la tolay wajigana waa kaasa u jeedin wajiga waxa waa computer halkan igu dhufato bas feer iyo computer halkan waxyaabo badan bay gaarsiisay gacanteeda xataa waxa waaye waa u jeedin halkan way ka qaniintay u jeedin intana kursiga ku jabisay ayada dhan waa u jeedin marka Soomaaliya beenta iska daayo oo waxaadan hubin ha soo gelinina dadka soo gelinayo ayaa adduunka iigu daranba oo dhahayo nina hadlay naaga hadlayso naag madooba nin ka qaaday laba gabdhood Soomaaliya dishay Soomaali ma dilin albaabka xirta dagaal Soomaali miyay ahayd naagta ma aqaan qabiilkeeda maya Soomaali ma ahayd af Soomaali may kugu hadashay wajigeeda Soomaali mu eka shakligeeda Soomaali mu eka ajnabi madow bay ahayd ilaahay ka cabsada waatana maama shukri waatana maamada ninay dhacday aad dhaysin inta la egtaa u jeedin nin aad hoosin see inta la egtaa qof weyn inta u jeedin subhanallah ilaahay ha ku caafiyo hooy macaan ilaahay ha ku caafiyo ilaahay boogdayda Allah hay Soomaaliyeey maama shukri waad aragteen fiidiyowga yar maamada xanuunka ay sheegatay waad aragteen sidee u hadlayso ee u dhayso micnaha been baa laga sheegay dadka been bay iga sheegeen walaashayna la kaxaajo wixii qeyr Allah siiyo waayo qofka runta banaanka soo dhigay waaye oo dadka runta tusay ما شاء الله تبارك الله بين معها مركا قفك والالك رنتي سأسو صارتو إلهي بأجر إيه حسنات كاسينايو أجر كاغن إلهي وكتصايو مركا أنا جنا دنتو بيكو كلفتي إنا صدوب أسحبتي إذا أن لو ذاقو ومداس لبن إيمان تودعيان إنو إلهي عافمات سيو إن سماينين معنا قف كدير حتى ما أقول حب ترجوجا يريد يسوق رعدي يريد أن كفر هذا يريد مركان فكسي هذا كذا ولا أردت سيد وهذا ليس يريد أن كفر تري يسوق شيء بيريد تحرتي فير وبلا ودي تري وأردتين وجه كذا أنت صورا ليك باكو جرو هارئ باكو جرو وحي تري قربها أنت قرب كان حكوا وحي تروي قانين أنت وأد أركيسان سيد ودير ما ميزو قرب كان كلام وحي تري كرسي بيجي جيجي بس حسبنا الله ونعم الوكيل بل محي كذا بسطي محي كسميسه وحي ترجع كذا إلى أدي تري إن طبيعي حسبنا الله ونعم الوكيل مو ورا بددوبة مصيبة الله كرهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قف برجع كوكت من ذكبر أسي مدية دونة تتر مرك مدية مضحي إجارسي سيد هي مضحي وتولين هاي لا وعير بقى يقطع إن وجه ذي إنه وجدود إيك باكو فضيو وجه كذا قرب كذا لن وجدودين هاي وحكوتهم كرسي وجه بسير هذا بركتان لن وجدودين تهاي بلوي دلاعة فاشد باسارا قرب كان كلنا وحيد روي قنين تقنية يقو قبطي
حسبنا الله ورابدو بهذا أملها لا إلهي هدو كاب باجرت الحمد لله ولا شيء قاليقة ماما دين الصومالية قاليقة وماما وين بل كورفع شركة إيه عبت إذا ما أنت نبان سبتال تعلو ولا هاي هدنا إن نبي وحق قاعدته وحق السميسة marka qof walaasheen oo dhiban oo isbitaal jiifto hadii maanta la dacayday oo la aflagaaday oo la dhaho wax bay sameysay wixii lagu dilay hada wallahi meelo badan jir dilkeeda hadaan arko wallahi caloosha ay hurtay marka danta igu kaliftay inaan soo duubo oo Soomaalideena la wadaago walaalahayga asxaabteyda qaaliga ehelkeyga familkeyga dhamaan aan la wadaago sida aan ugu wada duceyno in Ilaahay xanuunkaas ka soo bogsiyo oo Ilaahay caafimaad taam siiyo oo Ilaahay isbitaal ka soo saaro عافمات تام إن شاء الله إلهي سي وقبل ولا شيء الصوماليات نبقاري مركا دان دعايدين أو فضيحين أو عيب كشيء إيدو عيب لهن أو مانطنا أفريكان ما أقاني ترى حتى وحيتاي إسلام مركا أسوق شيء تري يدي يقول بالله مركا قبل ولا شيء الصيدا أودي بنا دان دعايدين أو عيب كشيء ولا وان كحمادة إن بدن أدي أدن وحمادة مركا ولا شيء عافمات تام الله سي لك حاجة marka walaasheena la kaxaaji wiceys qeyr Allah siiyo walaasheeda qaaliga qeyr badan Allah ku siiyo waayo adiga runta soo saaray dadka tusay gabadhi walaasheena oo dhiban oo maanta isbitaal taalba la dacayday ceeb laga sheegay maxaa ceeb ii dacayd keenay way xanuunsatay dhib baa gaaray waa la dilay u duceeye inuu Ilaahay bogsiyo caafimaad taam Allah siiyo walaasheena qaaliga Ilaahay isbitaalka nabad ha uga soo bixiyo qofkii dilana Ilaahay ha soo saaro waa qof dhibaato inay u geysatay rabtay inay u geysatay marka alxamdulillah waxay dheer raaja Allah saaran ma jabni alxamdulillah Ilaahay baa iga badbaadishay marka deena jabneen oo jir dilkaasna Ilaahay ka bii jir dilkaas aba xanuun badan waayo dhaawac waxa way gudaha jiro marka Ilaahay caafimaad taam ha siiyo walaasheena qaaliga ah in badan walaasheena waxaan dhahaynaa caafimaad taam ah Ilaahay ka bogsiyo insha Allah waxaan ku rajeynaa inuu bogsiyo marka walaasheena qaaliga Ilaahay caafimaad taam ha siiyo isbitaalka nabad Allah uga soo bixiyo lakii adeena jazakallahu khayran ma sha Allah tabarakallah Ilaahay ku jisiyo walaasheeda qaaliga adiga runta soo saaray codkeeda noo soo duubay kilibyada meelaha soo dhigay marka jazakallahu khayran inaan la wadaagno walaasheena inayna wax ka qaadan inayna qayaanin inay lacag ka xoogin ha ogaadaano yaana been laga sheegin gabdha walaasheena beenta ma fiicna been waa xaraan malana waa xaraan in aad masabilato oo malaysato oo qofkan mal aad ku been sheegato waa qalad asxaabe marka masaakiintaaneti caafimaad taam Allah siiyo asxaabteeda qaaliga ah waxa idin la wadaagayaa intaasi tiwaaye marka waxa idin dhahayaa channelkayga hadaad ku cusubtaa subscribe dheh kambalelka ka dhiga asxaabtaada kale u share garay comment like insha Allah muuqaal cusub sidaan oo kale hadaad rabtana subscribe dhahso kambalelkana ka dhiga si aad ila socoto wax walba ila wadaagto marka waxa idin dhahayaa assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaasheena qaaliga loo duceeyo inuu Ilaahay caafimaad taam siiyo insha Allah Ilaahay inuu caafimaad siiyo loo duceeyo walaasheena qaaliga caafimaad taam u rajeynayna walaasheena qaaliga Ilaahay caafimaad ku siiyo niyadana ha ka dhihin dadkeena way xun yihiin marka walaasheeda dadkan shantan farood Ilaahay ma simin bini aadamkina waa sida marka caafimaad taam Allah siiyo walaasheena qaaliga insha Allah biidnillah kareem oo u soo duceynayna salaad walba oo dukano marka dadka beenta sheegayna beenta iska dhaafaan dadka masabidanaya insha Allah assalaamu alaykum